haddaa idinku goosateen inaad maamul gaara noqotaan fariintayda waxa weeye halkaa ku ekaada haddaa halkaa ka xadgudubtaan waxaydan aan annagana mudnayn idinkana aad mutaysan ayay arrintu isu beddelaysaa waxaan rajaynayaa inaad maamulkiina ku ekaataan faragelinta aad ku haysaan gobolka Sanaag iyo Highland aad joojisaan gobolka Sanaag waxaa ka dhacay doorashadii Puntland dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay Sanaag iyo Highland waa laga codeeyay dadka reer Puntland ee Sanaag iyo Highland degan hadday dhaqan tahay hadday aqoon-yahan tahay hadday waxgarad tahay taladooda Puntland bay taallaa taladooda iyagaa xor u ah waxay goosteen maamulka ay wax ka dhisteen inay ilaaliyaan madaxda dowladda federaalka ah waxaan ka xumahay waxa ay ka shaqaynayso haddii dad mas'uuliyiin ah oo gobollada ka soo jeeda ay jiraan meesha ay joogaan ha ka shaqeeyaan Puntland waxay leedahay mas'uuliyiinteeda waxay leedahay madaxdeeda la doortay waxay ku filan yihiin dadkooda iyo degaankooda waxaan rabaa iyadana sidoo kaleeto in dadka Soomaaliyeed si dhab ah ogaadaan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh oo hadda hogaamiyo waxay ku sifowday kala irdhaynta iyo burburinta shacabka iyo dadka Soomaaliyeed waxaan halka fariin uga dirayaa cid kasta oo damiir leh dalka sidoo ku socdo in loo foojignaado waxaan fariin halka uga dirayaa golaha samata bixinta oo runtii magaciisu yahay samata bixin waxaan oran lahaa haddaa dalkan ka dhaxaysaan magacaa sheegateen ka dhabeeyo dalka samata bixiya shirarka madhalayska oo meelaha lagu meermeeraysanayo ama xubnaha golaha ku jira ee mararka qaarkood danaha gaarka ah leh waxba soo kordhin maayaan xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxay u baahan tahay samata bixin dhaba Puntland waxaa ka go'an